karo waxay la tahay waad aragtaa maalintii ilaahay meel ku geeyo waxaan rajaynaynaa in ilaahay ku geeyo meesha aad doonayso in calooshaada ilaahay ku siiyo waxaanuna doonaynaa maalintaasay noo ballama مشرح فارح علي الجامع وما انت نوبو يمي قبل كهيلان دقما دهر عاد ايال سودويننا وحنو لنا قول بإذن الله الكريم عاد بانو كسودوينا دركو لوارتا قول ايان كون رجينا وحوية درانك يغا مكوبي كرو ومدحوينه مشرحة ugu horeeyay oo gobolka Hiiraan yimaada oo cod iyo cudud ugu yimaada waxaanu garab taaganahay waxaanu leenahay mudana madaxweyne ma sha Allah madaxweyne waaba ku iri mudana mas'uul waxa timid deegaankaagi shucuurta dareenka waad aragtaa reer dhahareed lagaaga sheekayn maayo waxaan moodaa ka sheekayntiisa iyo aqoonta aanu leeyahay inay noo hooseyn doontaan laakiin ilaahay hortiina wax laga dhigan karo sida aan u aqaan markaan runtii sheego odayaasha waxgaradka culimada dhalinyarada ururada haweenka ardayda aad iyo aadka noo soo dhaweysay waa in salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka labaad waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntan aadka u qiimaha badan xilliga dheer aadna sugayseen xilliga badan aad abaabulayseen rag iyo dumar dhalinyaro arday odayaal cuqaal aan loo kala harin aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaana idin leenahay jasaakumullahu khayran waan idinka mudannahay sharxi maayo waxa weeyaan dib baynu u wada kulmi doonaa sharax badan bixin maayo laakiin waxaan leeyahay waxaan ku talagalay inaan imaado gobolka Highland magaaladiisa caasimadda ee Dhahar qorshaha siyaasadeed oo aan leeyahay haddii ilaahay igu guulayo madaxweynenimada Puntlandna waxaa kaga jirta meelo badan inaan wax ka qabto oo gobolkan ka mid ah waxaan sheegayaa waddada aanu soo maray oo dhulka xoolo daaqeenka marta oo baabuurtu iska yaacayso oo waddadii dhulkii baabiisay baabuurtii dhulkii daaqa ahaa baabiisay oo boor ka wada dhigtay oo caraguur ku samaysay inaan wadda ka dhigno laamiya almaciid ratuura oo hal meel la maro baanu samaynaynaa ballan qaadaynaa haddii alla igu guulayo taas waxa weeyaan waxay ka mid noqonaysaa bolosigayga inay laamiga ku xiranto Dhahar haddii rabbi idmo wax badan oo kaleetana waanu ballan qaadaynaa haddii ilaah nagu guulayo ilaahay baa ballan leh wax ballan fuliya reer Dhahareed way iga duwan yihiin dadka kale rag badan baan ku leeyahay saaxiibo ah rag badan oo aan soo wada shaqaynaan ku leenahay iyo dumar aad iyo aad baan u dareemayaa farxad sare soo dhaweyntiina aad u badan iyo qalbi furaanta iyo hagarbaxa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh